haddaan su-aashaada jawaabteeda u galo waxaa jirtay waxay xasuusinaysaa soo gelitaanka iminka taleex dibkeeda leeyahay maleeshiyaadka waqooyi galbeed ka yimi ay soo galeen waxay xasuusinaysaa duulaankii uu ingiriisku ku soo qaaday magaalada taariikhiga ahayd waagii halganka maxay ahayd gobonamadoonka iyo gaalala dirirka aynu ku jiray ayay xasuusisay waagana waxa loo duqeynaya taleex waxay ahayd dibkay leeyahay tukan oo islaam ha noqon maantana waxa taleex loogu soo duulaya waa hatashan oo tala aad leedahay adug oo dadka deegaankani leeyihiin oo ay ku midaysan yihiin ha yeelan sidii waagaaba aan loogu diriray haddii dadka deegaanka tahay ayaa iminkana loogu diriraya waa run oo uu ka furmay shirki dabadeedna haddii bidkeeda leeyahay ciidamada maxay ahayd ka soo duulay maxay ahayd xaqdarrada ku soo duulay ka yimi waqooyi galbeed dagaal yar oo ka bacdi way soo galeen magaalada annagu dhinac baan looga soo baxnay sababtaan looga soo baxnay waxaa weeye waa farsamo dagaal waxaa jirta se taleex joogi maayo la hayn maayaan waxaa bilaaban oo qorshaysan nidaamkii hore iyagu dagaalka ay u rabeen in annana mid aanu u samaynay u qorshaynay uu jiro warkiisana la maqli doono haddii aan la idmo waxba halkan ka sheegi maayo ninkii warankaagu galaa weedhaadu gashaa walaaltinimadii xeerin waaye oo soomaalinimadii xeerin waaye oo islaamnimadii xeerin waaye waxaa ballana inay ka baxayaan oo ayan joogin inay kaga baxayaan iyadoo haddii bikada leeyahay bacaha lagu duuduubay waa tahay madaxweyne markaad ka soo baxdeen magaalada taleex waxaa jira dagaalo goosgoos oo iyagu ka dhacay deegaanka dharkayn iyo magaalada saaxdheer bal ka warran warbixin naga sii dagaalkaasi iyo khasaaraha dhabta ay geysteen waxaan maqli jiray mitid farayar qoryihii bataa kaba macaashaan hadday waqooyi galbeed si leedahay dhuumo aad gawaadhi soo saarteen iyo horgalayaal baad ku qabsanaysaan deegaanka khaatumo kuna haysanaysaan waa laga yaabaa inay in yar idiin suurtowdo laakiin idinku raagi mayso waa soo jeestay dadkii dalkan lahaa waa soo jeestay odaygiisii iyo gabadhiisii iyo wiilkiisii iyo maamulkiisii iyo askarigiisii intuba way soo jeesteen waxay diyaar u yihiin sifo kasta oo idinkula dagaalamaan inay idinkula dagaalamaan sababta guusha keentay iyaga oo 25 tignika ah wata oo qoryaha waaweyn iyo kuwa gawaarida saaran 25 kuba ay yihiin in maxay ahaaytay ciidan tiro koobani intuu dhexda u fadhiisto haddii bidkeeda leeyahay wixii looga ku sameeyay maxay ahaaytay kabtaydii meeday ka carartay ee gaadiid ka furtay ee hub ka furtay ee horgalayaashii halka ku laayay iyo kuwa kala dabagalayaashaba waxa keenay sababta keentay guusha keentay waxa weeye go'aanka ay gaadheen maamulka khaatumo iyo dadweynihiisu waxaa jirta haddaan intaa ku yarkaba khasaaraha in yar horena dawaa uga sheegnay idaacadaha dhimasho badanna wuu jirtay xaggooda gaadiid la qabsaday oo labihii waa jiray iyo mid maalinkii dambe ah oo ahaa dharkeenga iyo meeshiisa ahaa waa 3 gaadiidka la qabsaday qoryaha la furtay waa 2 haddii alla kuu soo ogol yahay khasaaraha annagana soo gaadhay waa 2 mujaahid oo labada dagaal kala ahaa iyo mujaahid dhaawacmay waa tahay madaxweyne wax xiriir ma wada sameyseen maamulka Puntland ay isagu dhinaca inagu haya sideese u aragtaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee ahaa Khaatumo State Puntland waxa weeyaan waqooyi galbeed waxa in badan ku gabanaysay oo shaqadeeda wasaqda u fulinayay haddii bidkeeda leeyahay horgalayaal dagaalada ka tirsan hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday yihiin ciidanba waxaa ku soo maxay ahaaytay aayadii baa qahaysa maanta quraanka ku taalay ee ahayd alam nuhlikul awwaliin thumma natbi'uhum al-aakhirin kadhalika naf'alu bil mujrimiin horgalow qorta aayadaas ku haysay ogow meeshaad joogtidba haddaad siyaasi tahay iyo haddaad ciidan tahayba waa kuugu imanayna gurigii aad ku jirtidba waa kuugu imanayna haddii awal adoo soo horgalaya xabadda aanu kaa dayn jiray maanta annaga godkaad ku jirtaba kuugu imanayna horta ku xisaabta horgalow xidhiidh asaj naga dhaxeeya annaga iyo maamul goboleedka dowlad goboleedka Puntland oo ku wajahan iskaashi haddii bidkeeda leeyahay deegaanada tan muxuu ahaa ay maamul goboleedka ama aan ilaahdo maamul goboleedka Hargeysa uu soo galay aan ilaahdee
ma jiro muxuu ahaa waxaanu isla ognahay oo rasmiya oo meel yaalla oo aanu ku heshiinay labadayada maamul ma jirto odhahdan madaxweyne ku-xigeenku yidhina hilmaan hadalku ma jiro madaxweyne ku-xigeenku wuxuu u jeeday khaatuma state of Soomaaliya u jeedaye dee afka ka boobay oo waa hilmaan bay ahayde ma ahayn khaatuma state of Puntland ma ahayn dee hilmaankuna ma laha hadal male ugu dambeyntii madaxweyne maxamed yuusuf jaamac indhasheel dowladda federaalka Soomaaliya maxaad isoran kartaa sababaha ay uga hadli weyday xaaladaha ka soo cusboonaaday deegaanada khaatuma anigu waxaanu qabnaa inay raalli ka yihiin sidatan inay sidatan raalli kaga yihiin hadday doonaanna tuhunkeedu waaba lagu jiraa yaqiinteeda ma hayna inay ku taageerayaan sidatan waaba maqlin wufuud ay usoo direen maxay ahayd odayaal beri dhaweyd Hargeysa usoo direen oo ku dhawaaqayay meeshan aanu soo aragnay way istaaheshaa in maxay ahayd dal gaar ah noqoto dawladana soo dirtay